الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مدحوينها لدورتي أحمد إسلام iyo madaxda kale ee xafladda ka soo qayb gashay dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waqtiga kooban daraadeed hadalkaygana inaan soo koobo ayaa la iga codsaday. 97 ayaa magaalada Kismaayo imid anigoo ka socda hay'ad samafal. waa 1997 waxaa isku haystay jabhado oo rag odayaal oo meeshan jooga qaarkood ay hogaaminayeen oo hadda xildhibaano iyo senataro noqday. magaaladaas markaas way burbursaneed. waxay ahayd waagii jabhaduhu ay gacantooda isku dhaafaysay qolaba mar ay magaalada qabsanaysay. alliance ama isbahaysi magaalada haystaa jiray. waxaa kaloo jiray alliance iyo isbahaysi magaalada bannaankeeda goob weyn meel la yidhaahdo joogay. marka annaga imaanaynay samafalka aan ka soconnay waxaan u nimid biyobaxadii 97 Oktoobar dhacday ee webiga Jubba iyo Shabeelle isku darsameen. waxaan u malaynayaa waa markii ugu horeysay biyobaxadaas laag ay dhacdo. Kismaayo madaxda haysata markaan la shirayno meel aan kula shirno ma haysanin. xafiis yaroo UNICEF leedahay yaa shirka lagu qaban jiray. dowladda Ameerikaanka dad ka socda yaa mararka qaarkood imaan jiray meesha hadda madaxtooyada hore ah oo wax ka deganahay oo duduusan iyo habeenkii mugdiga nagula shiri jireen. dadka waxay lahaayeen sirdoon Mareykan ay ahaayeen. waa 97 biyobaxada markay dhacday qolada goobweyn joogta oo ka soo horjeeda qolada inta joogta ragga qaar ah fadhiyo meesha ma rabo markaas magaalada haystay inaan sheego yaa waxaan ku niri waxaan u baahanahay annaga samafalaan ka shaqeynaa mucaawano iyo gargaar bini'aadanna waan wadnaa. waxaan rabnaa qolada go'doonsan ee goobweyn ku go'doonsan ee dhinacii Muqdisho ka xiran yahay biyaha ka xiray dhinacan Kismaayo kaliya u furan yaan rabnaa inaan mucaawano u geeyno hay'ad la yiraahdo Sheikh Zayed Foundation oo Imaaraadka markaas laga lahaa yaa mucaawanada aan kala shaqeynayay. markaasaan Suudaan ku soo noqday oo dalka aan ku soo noqday. waxayna dhaheen waad u fasaxan tihiin inaad gaarsiisaan mucaawanada dadkaas walaalaheena ee go'doonsan. maanta waxaan joognaa in jabhado hubaysan ay ka damiir iyo garasho iyo dadnimo bataan dowlad Soomaaliyeed oo dhisan. anigu magaalada samafalaan ku imid qolada aan abtirsiimo ka soo jeedo waa qolada ku go'doonsan. waxay ahayd magaalada la yiraahdo Goobweyn ama Tuuleeya Goobweyn. Cornel waa dhintaan u malayn hadda Cabdirasaaq af waxa la dhihi jiray maana sida Soomaalida ma fiicnaa af gabdheedle iyo nin dhalinyaro markaas anigu asadeynino Cabbaas la yiraahdo oo kabtan iyo waxa ay ma garanayo ciidankaas haystay iyo isbahaysigii waxay ahaayeen dooxada Jubba meeshaas ka dhisnaa. waxaan la yaabnay madaxdii joogtay halkan ee jabhadaha hogaaminaysay waxay noo ogolaadeen oo dambiirkoodii Soomaalinimadii ayagoo isdagaalsan oo qoryo isku haysta inaan mucaawanada u geeyno. maantana dowlad Soomaaliyeed yaa Kismaayo waxay ku haysaa una qabateen. waa ayaan daro madaxweynaha waxaan leenahay mudane madaxweyne magacii qaranka huwan tahay ka xisho waxay jabhado Soomaaliyeed ay ka xishoodeen. qodobka labaad u gudbirada waxa hadalka waa kooban yahay. mudane Axmed Islaan markaan u nimid 7 oday oo qaarna madaxweynayaal hore ahaayeen qaarna maamul goboleedyo hadda ay talada hayaan qaarna hay jireen aan kula fadhiisanay. wixii ugu horeeyay naga codsaday waxay ahayd inaan ragga magaalada dhinaca kale ka jooga aan la heshiisiin. runtii waxaan u aragnay inay tahay bisayl iyo xilkasnimo ku fadhisa waayo aragnimo ku fadhisa. ma filaynin inuu qodobka ugu horeeyo ajandaha kow uu nagala hadlo waxay ahayd marqaatiyaan furaynaa ragga walaalaheena iga maqan tolow saaxiibayaalow odayaalow nala heshiisiye. waan ku maqanahay anagii odayaashii kale meesha nimid. waxaan rabnaa madaxweyne kuula dardaarmaynaa wadadaas hay nin kasta oo kaa maqan iyo gabar kasta oo taladaada ka maqan raadi ayadoo lagu daray dowladda federaalka madaxdeeda intaba. taasna waa kuula dardaarmaynaa. waxaan rabnaa Soomaaliya
markasta kala beeray taagan tahay markastana fursad ay haysataa lunta kala beerka maanta aan taaganahay mid Soomaaliyeed kaliya maaha kala beer waxaan taaganahay gobolka geeska Afrika aan dhex taaganahay kala beerkiisa kaasaan u baahanahay isirka Soomaaliyeed ama jinsiyada Soomaaliyeed ama qowmiyadda Soomaaliyeed yaa badbaado u baahan maaha jamhuuriyadda Soomaaliya kaliya waxaan u baahanahay marka xilkasnimo dheeraada waxaan u baahanahay aragti dheeraada waxaan u baahanahay waayo aragnimo iyo dadnimo dheeraada madaxda qaranka joogta intii aad dadka ku geey kartaan saqafka ama aad ku geey kartaan limitka ama aad ku geey kartaan xadka ugu dambeeya ku geyseen dadka ha ku qasbinina inay wixii yaraayo dhisan dumaan inaan nala kala dafo oo geeska Afrika waa ogtihiin maray argagixisadu suuq ka lahayd oo adduunku wuxuu ka shirayay maray burcad badeedu waxay ka ahayd waxa adduunka ka shiro maanta waxa laga shirayo waa geopolitics waa loolan iyo dan siyaasadeed nin al-shabaab dan kalena ma jiro nin burcad badeed dan kalena ma jiro nin dad majaaco u dhimaanayana humanitarian dan kalena ma jiro adduunkii wuxuu u soo labistay dan juqraafi siyaasadeed loo soo labistay ayaan ku dhex jirnaa haddaan nahay qowmiyadda Soomaaliyeed waxaan u baahanahay inaan dareenkeeda iyo aragtideeda yeelano madaxweyne farmaajo iyo xukuumaddiisaba ma rabno dadka ka soo taliya jooga kuwa talada rabaa jooga kuwa hadda gobolada ka taliya jira dadku waa xilkas way kala garanayaan danta qaranka Soomaaliyeed iyo danka dariska meesha iska jarto dadku way kala garanayaan laakiin ha ku riixin in darbiga la wada tago waxaan rabnaa oo kale inaan hal arrin ka dhawaajiyo waxaan rabaa hadda dawlad goboleedkii galmudugan xafladeedii xirnay munaasabadeedii waa gabagabeynay madaxweynihii waa calaamad saarnay waxaan u soconaa galmudug dhismaheeda waxaan rabnaa memberkan ka sheegayaa waxaan rabnaa galmudug in laga dhiso maamul dadka iyo dadka deegaanka iskale ay ku kalsoon yihiin oo yihiin maamul ayaga ay doorteen oo ayaga ay raali ka yihiin waxaa wasaaradda arrimaha gudaha waxaad ogaatiin Jubbaland waxa la isku haystay waxay ahayd doorashada Jubbaland wasaaradda arrimaha gudaha maamulaysa waa ku meesay Dr. Hamza war dastuurka Soomaaliya qoraya cidda doorashada maamul goboleedka maamulaysa ma maamulaysa wasaaradda arrimaha gudaha walaalayaasha ka maqan Jubbaland ku cibra qaata habraaci ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha soo u yaalo sida ay rabto madaxtooyada in loo maamulo doorashada dawlad goboleedyada ku cibra qaata hadda cibra qaadanaysan hadda waxa soo baxay warqad la leeyahay guddigii doorashada waxaan magacawnay wasaaradda arrimaha gudaha ee magacaawda galmudug warsay u magacaabaysaa galmudug dastuur ay leedahay oo madaxay leedahay oo hoggaan ay leedahay oo sharci ay leedahay waad maqlaysaan waxa la yiri guddiga doorashada waxa laga ansixiyay baarlamaan sharcigiisa waxa laga ansixiyay baarlamaan digreeta lagu soo saaray dalka waxa la isku hayo waxa waay ma dal hal qof ka taliya oo xukun hal meel yaala oo hal meel laga gooyo waa sidaan ahaa jirnay oo dad badan oo Soomaaliyeed dawladnimo luntay u yaqaanaan masaasa loo noqonayaa mise dalku waa federaal waa dimuqraadic dastuur iyo sharci oo ka taliyo waxa la isku haya ma aha qabaa'il beelo is hayee waxa la isku haya waa aragti siyaasadeed iyo mustaqbal iyo vision intaba waxaan rabnaa marka galmudug dawladda inay la noqoto waxay sameynayso inay ka waantoobo intan meeshaan joogtan inaan isugu tagno sidii doorasho xor ah oo loo dhameeyo xalaal halkaas uga dhacdo waxaan rabaa maadaama waqtiga kooban yahay inaan ku soo gabagabeeyo saaxiibkay la kafta yaran ku dara wuxuu yiri war madaxweynaha Addis Ababa aaday muxuu ka doonay ma ciidankii Ethiopia malaha maalmaha waxa socotay bu'aala la qabanaya la leeyahay ma ciidan u doontay bu'aale markaas aniga ma ogi in lagu qabto wallahi ma ogiyaan dhahay Allah ya ka Allah hadawdii soo waay war ma haysaa yiri maya war ninkii Abiy Ahmed ahaa Nobel Prize la siiyo balaaya ku furantay hadda taa ciidan meel u diri karo ma leh sidii gabadhii maaragtay maxay meeshii saasuujiye laga noqonayaa Nobelka marka guula soo hayatayo ciidan Ethiopia hadda soo duulaya ma jiro war intaan Ethiopia isku doona lahayn oo ciidan ajnabi aan isku doona lahayn oo midka noo jooga aan iska saari lahayn waxaan rabnaa kuwa noo jooga inaan iska saarno kuwa madaxweynayaasheena villada jooga
kuwii soo maraa jooga askari ugandhaysaa furaha villada haya oo ina waatii soomaaliya kuwaasaan rabnaa inaan iska saarno waxaan isaga saari karnaa soomaalinimo iyo midnimo iyo isku tanaasul iyo hadal anaga gundhi oo hal ku dhumno oo la yiraahdo isla guddoon talo iyo isku tanaasul iyo israadina lagu wadi karaa dalkan waa kakabkiisa inaan burburino ma rabno waxaan leenahay marka madaxweynaha inta waa biilgaraynayna madaxweynow intii aafali kartaan waa fasheen dalka dib u heshiisiin iyo u baahan yahay dalka wuxuu kale u baahan yahay hal wax yaa maamulka madaxweyne farmaajo lagu dul qaadanaya oo waxa tacaddi dhacaya laga soo bilaabo kii qalbi dhagax lagu sameeyay kii aniga leegu falay kii baydhabo laga sameeyay kii hadda ugu dambeeyay madaxweynihii hore Sheekh Shariif lagu celiyay kuwa gobolada lagu hayo hal waxa dulqaadkeeda oo ku socdaa wuxuu ku socdaa xilkasnimo dadka siyaasadda ku jira iyo maxaa kale doorasha dhici doonto 4 sano dhamaanayse qoladan si tartiib ah hanoo dhaafaan hadday amalka doorashada soo xiraan marka oo isku dayaan inay awoodda kororsadaan dalka Soomaaliyeed dulqaadkii ay ku joogeen waa doorashada hadduu kaas xirmo ogaada iridii rajada iyo iridii nabadda Soomaaliya dawladda ayada soo xirtay waxa la wixii mas'uuliyad ka dhacaan halkaas ayada qaadanaysa waa maasantii madaxweynaha markale u taaniyeen wasalaam